بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kusoo dhaweynaya xarunta Hodman Academy videogan waxaan uga hadli doonaa insha Allah sidee documentiga Word MS 2010 loo soo daaraa ama loo soo kiciyaa steps badan ayaa la isticmaalaa stepka koowaad wuxuu noqon doonaa inaan imaano halkan oo ku qoran tahay tab here to search ku dhufo doonaa click kadibna waxaan ku qoraynaa Word 2010 ama automatically asaa halkaas kusoo muuqanayo Microsoft Word 2010 hadayna double click halkaan oo kaga soo muuqanaa hab kale oo waxaa loo soo kicin karo inaan desktop-ka dhahno right click kadib aan dhahno new kadib aan dhahno Microsoft Word document habka aragtida aad isticmaali kartaa anaga hadda waxaan isticmaalaynaa Word 2010 documentiga waa kana marka kani waa fallaartii badboodaysa oo ku ogolaanayso qoraal marka aad inaad qortid meesha aad ka bilaaw lahayd overview kuwan waa ribbon-kii tabs-kii aan soo aragnay pages-ka zooming-kii iyo wax dhan meesha laga isticmaalay oo kuwana qoraal oo practice ayaa iska qoranaynaa rand equal qoraalkan waa qoraal iska practice oo iskaga save garaysan computerka qoraalkan iska qoranayna qoraalkan waxaan rabnaa marka mawduuc waxaan iskaga bixinaynaa introduction to MS Word 2010 هذا ميمدنا قفرت si loo weynayo si loo bedela ma ahan oo arki doona insha Allah kaliya mimidana waxa inaan save gareeno inaan abuurno document hadda waa abuurnay inaan save gareeno kadibna aan soo furno haddii rabno inaan save gareeno marka file la dhahayna kadib waxaan leeqaana save as iyo save farqi yar u dhaxeeya save as iyo save laakiin marka ugu horeyso ee documentiga la save gareenayo waa same function shaqo isku mid ayaa qabtaan save haddii aad dhahdid wuxuu ku ogolaanaa inaad magacii ku qortid shaygii iyo meesha aad ku save gareynaysid save as dad si lamid ah laakiin documentigan hore hadii uu jiray farqi weyn ayaa u dhaxeeya save macnaheedu waxa waa documentigan meeshuu yaalay ku save gareey hadii hore uu jiray documentigan oo qoraal hore uu qornaa oo kaliya edit ah ku sameeyay oo wax ka bedeshay save as macnaheedu waxa waa qoraalkan meel kale documentigan meel kale igey laakiin marka ugu horeyso aad save gareynaysa labada isku mid waay waxaadena save kadib magac inta badan magaceed uu qaato ereyada ugu horeeya magaceedu iska qaata waxa introduction to MS Word qaatay meesha ku save gareynaysa inaad dhigtid muhiim waay desktop-ka dhigana kadib waxaadena save kadib aad iska cancelena documentiga waa kana introduction to MS Word 2010 halka la soo furaa inaad dhahdo right click kadib aad dhahdo open ku soo furmaayo documentigii maxaa la yiraahdaa oo hore u sameynay haddii aan rabno documentiga anagoo ku jirno inaan documenti kale oo Word ah soo furno waxaan leenahay file kadib waxaan leenahay open kadib documentiga kale meesha uu yaala raadinayna ama desktop-ka uu yaali karaa ama wuxuu yaali karaa downloads hadba meesha uu yaalo documentigaas ayaa soo furaysaa tusaale ahaan hadda intaanu documenti mid kamid ah iskaga dhufanaynaa impact of information technology open waa documenti waa iska book oo arday ku qalin jabinaya jaamacad documentiga marka kii hore waa kana kii dambane oo kana soo furnay iska salay kartaa qaabkaas ayaa loo soo furaa adoo joogtid Word inaad Word kale soo furtid document kale inaad soo furtid save as haddii aan rabno inaan dhahno oo documentigan meel kale ku save gareyno desktop-ka meel aan ahayn aan ku save gareyno rabno waxaan isticmaalaynaa save as hadayna save as kii hore wuxuu nagu save gareysnaa desktop kan waxaan ku save gareynaynaa download oo kale kadib waxaan leenahay introduction to MS Word 2010 save documentigan wuxuu ku save gareysnaa hadda tan waxaa kaloo ku save gareysan yahay inaad tagno download kana
ku qoran isla qoraalkii wax laga bedela ma laha save as keliya positionka iyo bedel meel kale igu save gareey iyuu ka hadlayaa. halkaas waxaa noogu eg inaan abuurno document, inaan save gareyno, save as inaan dhigi karno, inaan soo furi karno waxaa loo yaqaano aan other documentiga anoo isticmaaleyno isla documentiga anagoo joogno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.